kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada channelka maalmaha fadlan subscribe sar hadii ay tahay markii kugu horeysay oo gambalaalka kumo si ay ku soo gaaraan muuqaalada halkan soo galino ku soo dhawaada qisa cajiib ah Teddy dharkiisa had iyo jeer wuxuu ahaa mid aad u wasaqaysan ama usqoq badan wiilkan oo loo magacaabo Teddy dharkiisa had iyo jeer way wasaqaysanaan jireen usqoq ayaa ka muuqda aqoontiisa waxbarasho aad ay u hooseysaa hadii jeerna isaga ayaa isku maqan oo waa uu fakarayaa wiilkii macallimadiisa iskuulku xukunkan ayay wiilkan dusha ka saartaa oo ay u aragto wiil aad u liita waa aragti ay ka dhaxshay muddadii ay wax u dhigaysay sababtoo ah hadii jeer lama ciyaaro ardayda muuqaalkiisa guudna waa mid aad u liito hadii jeer musqusha ama suuliga ayuu ku cararaa waqtiyada xiisaduhu ay socdaan murugada ka muuqata awgeed ayay macallimadu ku raaxaysataa markii ay buuggiisa ama waraaqiisa imtixaanka saxayso oo qalinka cas ay u badisaa waxayna ugu qortaa wuu dhacay warqad kasta ay macallimadu saxdo oo leeyahay wiilkan Teddy xaaladda wiilku ku sugan yahay markii aragtay ayay maalintii dambe waxay codsatay faylashii iyo warbixinadii laga qori jiray sanadii hore waxayna guda gashay in ay ka soo bilowdo sanadkii uu ku jiray fasalka koowaad iyadoo aqrinaysa ayaa waxay aragtay arin ay qaadan weysay macalinkiisa sanadka koowaad waxa uu ku qoray Teddy waa wiil aqli badan oo dadaala hibana Ilaahay siiyay shaqada loo diro si wanaagsan u qabta si wanaagsan u habeeyo casharadiisa ama duruusta oo ka qaatay iskuulka macallinkii fasalka labaad ayaa isaguna waxa uu qoray warbixin oranaysa Teddy waa wiil wanaagsan oo ay jecel yihiin saaxiibadii hase yeeshee warwar iyo walbahaar ayaa ku soo kordhay kadib markii hooyadii cudurka kansarka uu ku dhacay macallinkii fasalka saddexaad ayaa asagana waxa uu qoray Teddy geeridii hooyadii ku timid waxay u taabatay si adag wuu dadaalay laakiin aabihii ma ahayn mid daryeela wiilka oo ihtimaam siiya xaaladda gurigooda ama aqalkooda ka jirtana raad weyn ayay ku yeelan doontaa haddaan arintaas wax laga qaban si degdeg ah ayuu macallinkaas qoray macallinkii fasalka afaraad ayaa isaguna qoray Teddy waa wiil isku maqan oo inta fakaraya wax niyad ahna uma haayo waxbarashada saaxiibo uu la sheekaystana fasalka kuma leh wuuna saxda xilliga casharada lagu jiro ee wax la baranayo halka markay warbixinadii macallimada ay marsiinayso ayay ogaatay oo ay garowsatay dhibaatada jirta waxayna dareentay oo ay garwaaqsatay in ay ku xadgudubtay wiilka ama aad iyo isku xishootay oo way iscanaantay iyada nafsad ahaanteeda xaalka macallimadu wuxuu ugu darnaa markii ardaydii hadiyado waraaqa qurux badan lagu soo riday ay u keeneen macallimada marka laga reebo wiilkan Teddy oo isagu ku soo duuduubay waraaqadaha caadiga ah ee aan qiimaha lahayn ama iska liita ardaydiina waxay wada galeen in ay ku qoslaan Teddy iyo hadiyadiisa foosho xun hadiyada Teddy waxay ahayd silsilad yar oo qoorta la surto iyo quraarad ama dhalo catar ah oo kala bar ah ama aan buuxin si lama filaan ah ayaa ardaydii qosirkii u joojeen markii ay macallimadii hadiyadii ka gudoontay Teddy isla markaana sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay si diirna way ugu mahadcelisay Teddy waxay xiratay ay qoorteeda gelisay silsiladii yareed markiiba catarkii way isku shubtay waa isku buufisay wixii maalinta ka dambeeyay Teddy markuu iskuulka laga baxo toos guriga uma uusan aadin jirin wuxuu sugi jiray macallimada markay iskuulka ka soo baxayso maalintii dambe ayuu ku yiri maanta waxaan ka uranayaa hooyaday oo aan ka dareemayaa markii uu inta ku yiri macallimadii oohin ayay indhaheeda ka soo daadatay oo ilmadii ayay cishan weysay waayo Teddy wuxuu sheegay in catarkii kala barnaa ee hadiyada ugu keenay in hooyadiis ay isku shubi jirtay meelna uu dhigtay oo ku xafidan jiray sida darteedna markii ay macallimadii isku shubtay oo soo xasuustay udgunkii iyo catarkii hooyadii cajiib maalintii wixii ka dambeeyay macallimadii waxay guda gashay in ay aad u dareesho Teddy wuxuu bilaabay Teddy in uu dadaalkiisa dib u soo celiyo murugadii iyo walbahaarkiina ka yaraado sanad dugsiyeedkii markii uu dhamaaday Teddy wuxuu ka mid noqday ardaydii ugu darajada sareysa galaaska
quraanka online adigoo gurigaaga jooga ku bar caruurtaada markiiska barashada quraanka kariimka qaab online ah. wuxuu idin soo kordhiyay barashada quraanka kariimka axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam luqadda carabiga iyo afka hooyo luqadda Soomaaliga iyo farbarashada wixii faahfaahin ah waxaad kala xiriireysaa lambarka shaashada kaaga muuqda markiiska barashada quraanka kariimka waxaa kugu diyaar macallimiin khibrad iyo aqoon u leh barashada diinta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.